الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan daawadaashaynu jecelnahay meel waliba joogtaan sida waliba muuqaalkeena idin soo gaaraya waxaana ku soo dhawaataan barnaamijka madasha dhalinyarada oo alaabo toddobaadkiiba maanta oo kala mahadani oo kala ka daawataan telefishinka qaranka SNTV xarunta saddex ku leeyahay magaalada Muqdisho barnaamijka madasha dhalinyarada Usmaan Cabdiqaadir ayaa idin soo saartay toddobaadkan barnaamijka waxaana ku eegi doonaa maadaama barnaamijka madasha dhalinyarada alaabo aan ku falaqeynaa arrimaha la xiriira dhalinyaradii sidoo kale sida ay u howlgalaan ama uga howlgalaan bulshada dhexdeeda toddobaadkan doorka aan dhalinyaradu aan u saari doona mowduuca ayaa waxa ay noqon doontaa saaxiibayaal doorka dhalinyarada ee horumarinta bulshada iyo sidoo kale dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed toddobaadkan barnaamijka waxa markaasi ku martiyaan sida toos ah barnaamijkan uga qayb qaadan doona martideena Cabduladiif Xirsi Yuusuf oo ah tababara nololeedkaasi oo ka shaqeeya macadka ee lagu magac daray Mind Section Institution oo ah macad ka shaqeeya horumarinta aadanaha Soomaaliyeed sidoo kale waa asaase ka shaqeeya waliba iska leh xaruntani marka hore waxaan ku soo dhaweyn doonaa informationkaasi intaan gudaha u sii galin Cabduladiif martida barnaamijka Cabduladiif si toos ah waxaad ugu jirtaa xarunta sidoo kale stuudiyaha SNTV waxaan ku leenahay si gacmo furan ku soo dhawow xarunta marka hore waxaan ugu bilowdaa magacaaga bismillaah Sumaya horta aad u mahadsantahay aad baan kuugu mahadcelinayaa barnaamijkan quruxda badan ay ugu soo marti qaaday waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinayaa howlwadanada kala duwan ee telefishinka qaranka marka runtii farxad gooniya ii tahay inaan barnaamijkan madasha dhalinyarada ka soo muuqdo waana ku dhawahay barnaamijka aad ayaa u mahadsan tahay Cabduladiif dabcan waxaan maleynayaa barnaamijka madasha dhalinyaro adiga oo kala saagaaga ah in la soo xulo si maaragtay dhalinyarada iyo sidoo kale waxyaabaha ka qarsoon ay ugu soo bandhigaan asaagooda dhalinyarada Cabduladiif waxaan u maleynayaa dabcan aniga ahaan markii aan fiiriyo muuqaaga magacaaga iguma yara balse waxaan aad u sii jeclaan lahaa in noo falaqeysa ugu horeyn adiga ahaan dhalinyaro ayaa tahay waxaana laga yaabaa inaad taariikh sidaas u fogeense aadsan lahayn balse waxaan doonayaa inaad dadka isbarto bismillaah mar kale horta magacaygu saa sheegtay Sumaya waa Cabduladiif Xirsi Cabduladiif waa tababaro nololeed saddexdii sano u dambeysana ka shaqeynayay arrimaha tababarada iyo dhiirigelinta Cabduladiif waxa uu sameeyay macadka la yiraahdo Mind Success Institute oo ah platform ka shaqeeya life coachingka saddexdii sano u dambeysana bixinayay tababaro iyo koorsooyin la xiriira human developmentiga Cabduladiif waxa uu ku dhashay gobolka Mudug laakiin waxa uu ku barbaaray waxna ku bartay magaalada Muqdisho waxa uu ka mid yahay dhalinyarada farakutiriska ah ee Soomaaliyeed ka shaqeysa barnaamijyada human developmentiga sidoo kalena isku arka inuu ka mid yahay dhalinyarada firfircoon dhalinyarada dhiirigelisa wax u sheegta wacyigelinta kala shaqeysa sidoo kalena bixisa tababarada professionalka oo la xiriira human developmentiga marka macluumaadkayga kooban Sumaya waa intaa Cabduladiif aad ma san tahay طبعا waxaan u maleynayaa taariikh ma sha Allah inaad leedahay sidaan aan maqleynaa man daawaneynaba marba waxay tiri waxaan ka mid ahay dhalinyarada dhiirigeliya dhalinyarada saagayga iyo bulshada qaybaheeda kala duwan dhiirigelinta intaan gudaha u sii galin horta maxay tahay iyadu si kooban kulay dadkana daawanayana laftirkooda way ka warqabaan oo way ka warhayaan laakiin wax cusub oo runtii horta anagu aan sheegaynana ma ahan laakiin wax yar hadaan dul marno ama aan kelmad kooban ku soo aruurino dhiirigelintu waxay ka macno tahay ama waxay ka dhigan tahay in qofka bini aadamka lagu xamaasad geliyo ama lagu qiiro geliyo in nolosha step kale uu hore u socon karayo ama halka uu joogo uu kor uga kaco marka waa qofkii inaad siisid dareen iyo xamaasad iyo qiiro si halka uu joogo uu uga tallaabo oo step kale uu kor ugu kaco waxayna ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan oo maanta haddii dunida la fiiriyo waxa waaye aadka diiradda loo saarayo haddii dadka caadiga ay noqon lahayd haddii shaqaale ay noqon lahayd haddii si guudba bulshadii ay noqon lahayd dhiirigelintu maanta waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee bulshada caalamku diiradda ay saaraysay ka mid tahay lianna waxa waaye bulsho kasta waxay leedahay dad isbedelka waxa waaye yani u noqdo hormuud u noqda marka dadkaas isbedelka hormuudka u noqonaya
noloshoodu macno badan ma sameynaysa haddii bulshadii kalena waxawaa sidaasoo kale aysan la soo noqon. marka waxay u taagan yihiin ama waxay yacni missionkooduba waxa uu yahay bulshaduna sidaasoo kale inay hana qaado. marka si kooban dhiirigelinta waxaan ku soo aruurin karaynaa waa just shidaalka qofka bini aadamka ee ku drive garaynaya ama kaxaynaya inuu waxawa missionkiisa inuu qabsan karaayo. marka taas si marka dadkii waxawaa loogu caawiyo you have to inspire. that's the meaning man. ما شاء الله هذا ما صنتها سو شحكتا معد كان اي نور شيغتاني daawadayaashaba goorma asaastay yaasir macadkaasi maamulka. Soomaaliya sidaad adigu sheegtay aniguna aan sheegay waxaan ahay agaasimaha iyo asaasaha guud ee macadka la yiraahdo Mind Success. wax yar oo kooban haddii profileka macadka aan kaaga sheekeeyo ama aan soo koobo exactly waa macad ama platform noociisu horta dalka uu ku yaryahay hadduu ka jirana farakutiris uu yahay. markaan ku leeyahay noociisu dalka uu ku yaryahay waa platform diiradda saaraya life coachingka. kelmadaas waxaa laga yaabaa dadkeena xogaa inay ku cusub tahay baa laga yaabaa. exactly waa wax dadku intii badan aysan u badnayn waaye. anaga markaa fiirisid hab tacliinteena markaa fiirisid ama nidaamkeena waxbarashada Soomaaliya marka si guud loo fiiriyo waxbarashada aas-aasiga oo iskuulka qaybihiisii kala duwanaa jaamacadda qaybaheedii kala duwaneed iyo meelaha dadku ay ka helaan xirfadaha technicalka iyo waxyaabaha luqadaha la xiriiro intaasay dadkeenu inta badan ka dharagsan yihiin. laakiin waxaa laga yaabaa dhagaha dadkeena inay ku cusub tahay yacni nidaamka waxbarasho ee life coachingka ama human developmentiga loo yaqaano. dunidana maanta ka mid ah waxyaabaha driverska ugu waaweyn ee waxawaa yacni lagu howlgelinaya. marka si waxawaaye jihadaas aan u bilaabo dad badanna berri ka maalin ay role model aan ugu noqdo oo waxaan sameeyo kale ay sameeyaan ayaan horta macadkaas ilaahay i waafajiyay 2020 bishii 1 ee January ayaan horta aasaasnay. waxa ugu weyn ee diiradda uu saarana waa inuu bixiyo culumta soft skillska ama soft knowledgeka inuu bixiyo waaye si gaabkaas bannaan oo wadankeena waxa waaye aadka ugu yar aan u buuxino intii karaankeena. ujeedku horta sidaas uu ahaa macadka aan u furnay. waxyaabaha ugu waaweyn ee diiradda uu saarana waa tababarada la xiriiro dhisidda iyo wax ka bedelidda iyo kobcinta karaanka qofka bini aadamka. 3 sano macadku uu shaqeynayay wax badan baa runtii noo suuro galay oo dhalinyaro fara badan baan tababarnay dhalinyaro fara badan baan soo saarnay ilaahay idamkiis kuwaas oo aan ka aragnay isbedelo la taaban kara inay ku tallaabsadeen intaanay nagu soo biirin ka hor iyo markay nagu soo biireen kadib noloshooda farqi weyn inuu u dhexeeyo. marka si guud macadka dhalinyaro kale igala shaqeysa oo tababarayaal iyo hawlo kale laftirkoodu ka haya. so team baan marka nahay maadaama hawl culus oo weyn ay tahay oo wadankaba aan ka mid nahay macaahidda dhif iyo naadirka iyo waxyaabahaas ka shaqeysa team baan nahay hawshan waa isla wadna. way aad u mahadsan tahay. maxay muhiimad intee leeg ayuu markaasi macadkaas u leeyahay dhalinyarada iyo bulshada qaybaheeda kale? waxaan rabaa si kooban su-aashaas inaan kusoo koobo. tacliinta caadiga ah dadku inta badan ay wada garanayaan oo iskuulka qaybihiisa kala duwan walaa jaamacaddu waxaa la yiraahdaa waxay diiradda saartaa qofka sidii wax loogu sheegi lahaa ama wax loogu shubi lahaa oo qofka asaga marka waxa waaye markasta wax qaadanaya. laakiin nidaamkan life coaching wuxuu diiradda saaraa qofka gudihiisa waxa ku jira sida loo soo saari lahaa. si kale markaan kuugu dhigana waxa uu diiradda saaraa qofku qofnimadiisa iyo tayadiisa iyo kartidiisa siduu ku soo saari lahaa ayuu diiradda saaraa. tusaale kooban baan ku siinayaa. dadkeenu miyigu waxay yaqaanaan ceelasha oo biyaha laga cabay aad u garanayaan. marka ceelka si biyaha loogala soo baxo waa in wadaan loo ridaa wadaantaasaa marka ceelka biyaha ka soo saarayso. marka tacliinta caadiga inta badan waa wadaantii ceelka loo ridaayo kala waaye. systemkan life coachingka ahuna waxa waaye waa wadaantii iyadoo biyo leh ceelka laga soo saarayo waaye. marka muhiimad aynkee ayay waxyaabaha noocaana dhalinyarada ama si guud bulshada u leeyihiin waxa waaye waa nidaam waxbarasho oo soo saaraya qofka qofnimadiisa soo saaraya.
waa nidaam waxbarasho oo focus ka saaraya qofku talentigiisa ama kartidiisa siduu ku horumarin lahaa marka simple way waa jawaabtu waa intaas aad weyn dhiirigelintaas iyo macadka waxyaabaha kale uu qabto marka la fiiriyo how to speak and people ayada naftirkeeda markii la yiraahdo dadka bulshada hortooda ugu holi kartaa marka la eego ayada naftirkeeda iyo isla dhiirigelintani dhalinyaradu ma ka caawinaysaa nolosheeda qeybaheeda kale horta waxa ugu weyn oo maanta waxa waaye adduunyada lagu baratamayo xirfado waaye yes maanta markaad goob shaqo markaad tagto waxa ugu horeeya lagu weydiinaya maxaad qaban kartaa waa sii dhamaanaya systemkii maxaad taqaanaa ama maxaa garanaysaa waxa laga yaabaa hadda inuu sii dhamaanaya oo loo jihaystay maxaad qaban kartaa waa can you do maxaad qaban kartaa marka labaan u kala qaadinaa marka waa xirfadaha wax lagu qabto waa labo xirfadaha qaarkood waa technical waaye waxay la xiriiraan farsamo iyo wax si physical loo qabanayo xirfadaha qaarna waxay la xiriiraan mentalityga waxaa la yiraahdaa social skills ama soft skills la yiraahdaa inta badan xirfadaha technical skillska qofku laba qaab uu ku heli karaa either inay ka soo raacaan systemkiisa waxbarashada inay ka soo raacaan oo qofku markii 4 sano degree jaamacadeed oo computer science ama IT markuu soo qaato IT-gaas wixii uu ka dhaxelay oo xirfada waxaa la yiraahdaa technical skill ama waxaa la yiraahdaa hard skill la yiraahdaa waxa jira marka sector kale oo xirfada ah oo dunidu maanta ay aad u qadarinaysaa jiro xirfadahaas marka waxaa la yiraahdaa social skills la yiraahdaa mar waxaa la yiraahdaa soft skills la yiraahdaa mar waxaa la yiraahdaa mentality skills na waa la yiraahdaa waa xirfadaha marka inta badan la xiriira ama ku saabsan qofku hab fikirkiisa sidoo ku sixi lahaa hal abuur sidoo kula imaan lahaa dadka sidoo kula macaamili lahaa afkaartiisa sidoo ku soo qeyn lahaa and so on waa fara badan yihiin laakiin intaas asambal waa so dunida marka maanta aan joogno marka maadaama qofka lagu qiimeynayo maxaad qaban karaysaa maadaama qofka lagu qiimeyn karayo su'aal baa meesha imaanaysa oo ah labada xirfadood oo technical skillska iyo soft skillska yaa muhiima ma la fiirinaya wax badan hadda waxaa la fiirinayaa in xirfadaha soft skillska ama social skillsku ay muhiim yihiin oo ay ka muhiimsan yihiin technical skillska exactly technical skillsku waa muhiim lagama maarmaayo waana waxa ugu muhiimsan si marka loo eego laakiin waqtigan casriga ah oo adduunyadii ay ku dhisan tahay information iyo afkaar iyo waxa waaye wax isweydaarsi ay ku dhisan tahay qofku qaybtaa kale ee social skillska ama soft skillska loo yaqaano inuu ku fiican yahay iyana waa muhiim simple example marka qof baa wuxuu ka soo baxay jaamacad wuxuu soo qaatay degree 4 sano ama 3 sano oo ku saabsan computer science oo kale tusaale u soo qaadanayna qofka markuu suuqa shaqada markuu yimaado dhalinyarada waxyaabaha ka qaldan waxa kamid ah waxa laga yaabaa qofku inuu u haysto 4 sano ee jaamacadda uu dhiganayo waxa jaamacadda uu ka dhiganayo ama degreegaas waxa uu ku dhex baranayo ayuu u maleeyaa suuqa shaqada markuu tago successful inay ka dhigayaan mana ahan oo suuqa shaqada markaa tagtid waxyaabaha u horeeya ugu muhiimsan ee qofka lagu qadarinayo waxa kamid ah qofku inuu ku fiican yahay communication skills dad la macaamilka dad la falgalka exactly haddaanu qofku ku fiicnayn xitaa hadduu master degree gaarsiisan yahay waxa laga yaabaa caqabad weyn inay ku noqotaa laga yaabaa sheeko yar waxaa jirtay arda ka hormar macadkan oo joogaa nin dhalinyaro ah noo yimid marka hindiyu ka yimid master soo qaatay bachelorkiisii horena wuxuu ahaa Kenya ku qaatay si uu noo sheegay luqadiisa ingiriisku aad u fiicnayd luqadda Sawaaxiligan aad ugu fiicnaa akhriskiisuna aad buu u fiicnaayo nin wuxuu ahaa dadka aad wax u akhriyaa Muqdisho yimid markii uu horeysay bay ahayd uu ii sheegay inuu Muqdisho yimid ujeedaduna waxay ahayd inuu fursado shaqo iyo waxyaabo noocaas oo kale inuu baadi goobo halkan markuu yimid buu dhowr fursadood oo uu aqoonteedii iyo xirfadaheedii iyo shuruudihii oo dhan uu buuxin karo ayuu arkay marka waad aragtay mar kasta oo shaqo la soo baahinayo conditionska ama marka job descriptionka waxa waa la soo faahfaahinayo waxa ku jira shardi ah qofka shaqadan soo codsanayo waa inuu ku wacan yahay ama ku fiican yahay communication skills yes waa inuu xirfadaas ku fiican yahay wuxuu yiri marka shaqooyinkii mar allaaliye markaan dhaho apply gare mar allaaliye markaan is dhaho
waan ogahay buu yidhi xirfadda social skillskaygu wuxuu yidhi aad bay u hooseeyaan ama communication skillskaygu wuxuu yidhi aad bay u hooseeyaan. once marka aan arko qofka shaqadan soo codsanayo waa inuu ku fiican yahay communication skillska, wuxuu yidhi processka halkaasaan ku joojina. sababta waa ogahay buu yidhi kalsooni badan iskuma qabo, dad maanta wax kama dhaadhicin karo, fikrado ma suuq geyn karo. in case maanta haddaan u baahanahay inaan fikrad inta qaabeeyo xitaa aan u raadsado maalgelin, wuxuu yidhi wixaas ma sharxi karo, dadka ma iibin karaayo. ilaahay mahadiis macadku kusoo biiray 3 bilood meelahaasuu koorsooyin fara badan ka qaatay oo communicationka iyo waxyaabahaas la xiriiro ka qaatay. hadda of course suu ii sheegay hay-ad buu u shaqeeyaa ilaahay mahadiis. waxaan marka warkaas usoo qaatay xirfadahan inay absolutely maanta waxa lagu kala tegayba waa social skillska waa maanta, marka waa very important. Thank you. baahida markaasi qabta ee dhalinyarada shaqo la'aanta iyaduna qayb ma ka tahay ma laga yaabaa inay ka hormariso xaggaas iyadoo shaqooyin kale la eegayna xitaa wax badan hadda marka la fiiriyo way noqon karaysaa oo ardadii ama dhalinyaradii waxaa laga yaabaa markay jaamacadda dhiganayaanba focuska ugu weyn waxay siinayaan waxa ay baranayaan focuska ugu weyn siinayaan. wahdaatayna waa kuu sheegayo qofku digriiga uu jaamacadda ka dhiganayo suuqa shaqada marka la yimaado wax badan qofka uma gooyo ama wax badan uma qabanayo. exactly haddaadan marka ku lamaanin waxyaabo kale, haddaadan ku lamaanin oo suuqii markaa timaadid dadka uga duwanaan karta haddaadan wadan, dee of course waxaad ku dhaqmaysaa murtidii Soomaaliyeed ee ahayd dadkaaga dhinac ka raac bay noqonaysaa. marka culeysyada dhalinyarada haysta shaqo la'aanta marka la eego, anigu waxaan aaminsanahay of course maanta dhalinyaradeenna shahaadooyin jaamacadeed kuma yara, oo waxaa laga yaabaa dhalinyarada qaarkood xitaa double patch inay yihiin, masterka xitaa dhalinyaradu hadda inay si degdeg ku sameynayaan waa ku yara dhiirinayaan. laakiin dhinaca kale waxaad u malaysaa xirfadahan soft skillska ama social skillska inay dayacayaan baad u malaysaa. si kooban marka anigu maanta markaan shaqo doon ahay ee aan haysto bachelor iyo master markaan haysto ee aan ku imaado adoo shaqo bixiyaa markaan ku imaado, waxa ugu muhiimsan ee shaqada aan kaaga guuleysan karo waa inaan horta kaa dhaadhicin karo booskaan horta inaan u qalmo inaan kaa dhaadhicin karo waay. taana ma samayn kari unless aan ku fiicanahay communicationka aan ku fiicana. marka dhalinyarada waxaan ku daraa qodobkaan aan ku darayaa hadda markaad magaalada fiiriso waa labo ama si guudba dalka markaa fiirisay. dhalinyarada qaarkood waxa waaye hal jaamacadu ka soo baxay laakiin wuxuu xariif ku yahay la falgalka iyo communicationku xariif ku yahay, halkaa lagama soo maro. waxaa laga yaabaa qofkaas fursadahaas u abuuraayo sida uu uga faa'iidaysan karaayo ma malaysan karaysa. mid kalena waxaa laga yaabaa jaamacad buu ka baxay, mid kaleu ku daray tababaro fara badan, koorsooyin fara badan buu sameeyey, laakiin communication skillskii uu ku liitaa gurigu jiifaa. marka aqooni kuma yara, shahaadooyin kuma yara, xirfadana waxaa laga yaabaa inaanay ku yarayn. but the main problem oo haystaa waxa waaye in xirfadiisa la falgalku ay aad u hooseyso. waxaan kusoo xirayaa su-aashaas jawaabteeda xikmad yaroo ingiriis oo waxaa jirta oranaysa your network is your net worth, oo macnaheedu yahay qofka fursadihiisu waxay la eg yihiin shabakada dadka ahee uu leeyahay intay la eg tahay. marka the more oo aad waxa waa networkaagu uu fiican yahay waa the more oo fursadahaaguna ay fiicnaadaan. the less networkaagu uu liito ama uu daciif yahay ama uusan hormarsanayna waa adiga iyo fursadu inaad kala haajirtaan. marka qofku sidee networkiisa ku hagaajin karayaa waa inuu communication skillska ku fiican yahay. communicationka naftarkeeda aan dhinac uga gale miyay tahay iyadu wax la barto sidii iskuulaadka oo kale loo galaayo waxbarashada qayb kamid miyay kamid tahay mise waa wax tababar ahaan loo qaato oo kaliya? laba mid bay noqon karaysaa. waa tan ugu weyn horta waa xirfad la baran karaayo oo u baahan inuu qofku waqti gooniya geliyo, energy gooniya inuu ku bixiyo, attention gooniyana inuu siiyo ay tahay. waana midda labaad oo qofku bulshadii waa ka dhex baran karayaa, oo aqoontaas kale uu sida qaaska u baranayo waa ka dhex heli karayaa. laakiin qofka hadduu doonayo professional inuu ku noqdo, xirfadyahan inuu ku noqdo, waxaan isleeyahay waa muhiim qofku dhinac gooniya inuu u daraaseeyo ama u barto waa muhiim aan isleeyahay. sidee?
يعني qofku inuu tababar ahaan u qaato oo si ka madax banaan tacliintiisa kale qofku inuu u qaato of course hadduu macad u xaadirayo iyo hadduu si kale course ahaan u qaadanayo si waxbarashada caadiga ka madax banaan qofku inuu u sameeyo waxaan is leeyahay waa muhiim marka la eego muhiimadda ay xambaarsan tahay way Cabduladiif marka laga reebo macadkaaga ma jiraan macad kale markaas ii bixiyo koorsooyinka adiga bixiso kale inta hadda ogaalkayga ah wadanka waxaan is leeyahay santarada noocan ama platformyada noocan oo life coaching ka shaqeeya waa ku yar yihiin baan hadda anigu inta ogaalkayga is leeyahay si guud hadda marka la fiiriyo qaybtan koonfurta anigu aan joogna iyo qaybta waqooyiga dalka horta waxaan is leeyahay waqooyiga kale horta aad baa looga heli karayaa oo santaro just waxa waay baahida noocaana dabool horta aad baa looga heli karayaa waan is leeyahay laakiin intaan anagu hadda ka warqabo ogaalkayga markaan kaashado qaybtan koonfurta waxaan is leeyahay way ku yar yihiin baan is leeyahay laakiin ma dhihi karo ma jiraan ma dhihi kara laakiin ogaalkayga waxaan is leeyahay waa ku yar yihiin laakiin waa baahi weyn oo dadku ay qabaan una baahan in diiradda la saaro iyadoo baahida zaidka loo qabo maxaa keenaysa in maragtay dalku uu ku yaraado waa su'aal horta very important oo meesha taala wixii waa baahi taagan si loo daboolana waxa waaye waa in la helo santaro fara badan iyo institutiono fara badan hal iyo laba iyo saddex ka badana si dadku meelahaas ay wax uga helaan marka waay kaalinta loo buuxin waayo wax kale maahan anigu waxaan is leeyahay bulshadeenu hal dhinac bay wax ka arkaysaa oo hal dhinac baa waxa laga yaabaa focuska inuu saaran yahay baa laga yaabaa mid kalena marka loo eego fildigan asaga laftirkiisa xoogaa cusub dee kuma sii jirta Afrika laftirkeedana xoogaa waaba iska yaryaa si marka loo eego Soomaaliya marka si hoose loo yimaadana waa waxyaabaha reerka dhif iyo naadirka marka ayada waxay u baahan tahay aqoon ahaan horta qofku inuu waxaan horta u dhisan yahay waxa waaye inaad curriculum ama manhaj xitaa inaad sameyn karto waa muhiim anigu hadda markaan bilaabayay macadkan markaan bilaabayay xaqiiqatan aqoon badan uma lahayn fildigan aqoon badan uma lahayn xirfadda exactly xirfadda laftirkeeda aan ku hawlgalay aad uma horumarsanayn inta aan ka ogaana aad bay u yareen laakiin waxa ugu weyn oo horta aan wax ku bilaabay waxay ahayd dhiiranaan iyo geesinimo iyo isku day iyo ku dhacbaan horta aan wax ku bilaabay wixii markaas saan u gudagalana waxaan go'aansaday inaan dib u laaban barkay aan raadiyo maalin kasta sidaan wax cusub aan ku ogaan lahaa anigu waxaan macluumaad fara badan iyo koorsooyin fara badan aan ka helay macaahid iyo jaamacado wadanka dibadiisa 3 sano u dambeysay waxaan sameeyay ilaa 30 koorso ka badan oo anigu aan qaatay oo naftayda aan ku dhisayay si fildigan life coaching aan ku jiro aan wax badan uga ogaado waxaas badan aan ka ogaanayo aqoon iyo xirfad iyo ogaal intaba ahna ana dhowti dhalinyaradii waxa waaye ugu soo gudbiyay marka haddaad tiraahdid waxa waaye waxaan waa bilaabayaa of course horta marka hore aqoontii horta inaad leedahay waa muhiim aqoontii ayada laftirkeedana waxa waaye dalkii lagama wada helayay waa inaad dibadii ka raadisaa oo dadka ehelka u ah aad ku faraq xirataa hadday institution yihiin iyo hadday shakhsiyaad intaba hadday yihiin marka waxaan isleeyahay reasonka ugu weyn ee keeni kara inay gaabkiiyo bannaan haddana inaysan dadku kusoo dhiirin waxaan isleeyahay wacyigeennoo qaybtaas aad uga hooseeya laakiin waxaan rajaynayaa 10 sano soo socota hadduu ilaahay yidhaahdo Soomaaliya fildigan life coachingku wuxuu ka mid noqon doonaa field weyn oo ballaaran oo dadku ay ku soo xirtaan inuu noqon doono saasaan rajaynaa way wali su'aalahayga waxaa malaynaysaa inuu si u badan yihiin balse intaa ka gaarno isleenahay Cabduladiif oo jawaabi kara baan ayadana ku soo qaadan doonaa marka la yiraahdo fagaarka hadalka ama public speaking-ka waa shay aad u culus dadka laakiin waxa laga yaabaa dhalinyarada qaar inay fahamsaneen maxay noqon kartaa horta fagaarka hadalku fagaarka hadalka su'aalo fiican baa isoo weydiisay waxa waaye waa mid ka mid ah xirfadaha maanta ugu qaalisan ee la barto horta xaqiiqada marka laga hadlayo waana si kale marka loo eegana anigu waxaan u arkaa inay tahay xirfadda ugu fiican ama ugu mudan ee qofka ka dhigi karta qofka ugu fiican ee uu noqon karaayo sabab baan kuu sheegaya marka waxaa jiro shay
qof kasta hadduu ku dadaalo oo diiradda si gooniya u saaro wax badan u fududayn karaya waa hal shay oo hadduu qofku foxka iskugu geeyo ama diiradda uu saaro albaabo badan u furaya ilaahay baa albaabada furaya waxa waaye fursado badan siinaya sidaasoo kale marka hadda xirfadan public speaking anigu waxaan u arkaa xirfad qofka hadduu barto oo uu ku dadaalo wax badan u fududayn karaysa maxay kuu fududayn kartaa marka waxay kuu fududayn kartaa maanta waxaa laysku haystaa adduunyada maanta afkaar baa laysku harqinaya yes haddaadan fikradahaaga iibin karin amaadan suuq geyn karin qasab qof kale fikradihiisaad xambaaraysaa laazim taada meel marin karin amaadan suuq geyn karin qof kale kuwiisa ama afkaartiisaad xambaari karaysaa marka waa xirfad maanta qof kasta oo nolosha jaanib uga jira ama siyaasi ha noqdo ama macalin ha noqdo ama dhakhtar ha noqdo ama waxa waaye daaci islaam ha noqdo dhinac kasta uga jira muhiim u ah way ugu dambeyn kunaanadkii barnaamijka ayaanu ku jirnaa taladaada iyo tusaalahaaga maadaama aad tahay tababaro nololeed waxaan u malaynayaa baahi aad u weynba inay bulshada u qabaan qeybahaasi kala duwan maxaad bulshada markaasi u reebaysaa waxaan u malaynayaa waa su-aasha u dambeysay barnaamijka waa ka faa'iidaysanayaa waxaan rabaa su-aashan jawaabteeda inaan saaxiibada kala duwan ee interviewgan daawanaya ama sheekadeena daawanaya intaanaan rabaa hadduu ilaahay yidhahdo horta inaan uga tago horta qofka dhalinyaro markuu yahay waxa uu ku jiraa waqtigii ugu fiicnaa ee noloshiisa ugu jiraa xilligaa waxaa lagu tilmaamaa xilliga dahabiga lagu tilmaamaa waa xilliga qofka uu jaangoyn karo mustaqbalkiisa qeybta dambe uu jaangoyn karo waxaa la yidhahdaa qofka haddii marka uu ku jiro 20 ilaa 30 tobankaa sano waxaa lagu tilmaamaa xilliga dahabiga la yidhahdaa boqolkiiba 80 waxaa la yidhahdaa dhacdooyinka ugu waaweyn ee noloshu tobankaa sano ay ku dhacaan baa la yidhahdaa oo qofka haddii tusaale ahaan tobankaa sano wax kasta oo uu ku sameeyo boqolkiiba 80 waxaa la yidhahdaa 40 markuu dhaafo ayay dib ugu soo laabtaan baa la yidhahdaa hadday wax positive ahaayeen iyo hadday wax negative labadaba ahaayeen marka tobankaa sano qofka marka waxaa la rabaa ciyaar inaanay uga bixin baa la rabaa tobankaa sano qofka waxaa la rabaa inaanu dayicin baa la rabaa tobankaa sano qofka waxaa la rabaa waxyaabaha mustaqbalkiisa dambe uu rabo inuu u aayo inuu ku qabsadaa la rabaa marka walaalaha qiimaha badan waxaan kula dardaarmayaa qofka hadduu dhalinyaro yahay waa xilliga awoodda ugu badan uu leeyahay ilaahay baa awood leh fikir hadday tahay iyo physical hadday tahay labadaba waa xilliga fursadaha ugu fiican uu nolosha ka faa'iidaysan karaayo waa oo tusaale hadda markii adoo shirkad madax ka ah ay shaqo kugu soo doontaan 25 jir iyo waxa waaye 50 jir qofka aqaadinaysa waa taqaanaa adoo shirkadaada u daneynaya yes waxaa leedahay 25 jirkaana ii fiican marka waqti iyo energy iyo fikir intaba marka la fiiriyo 50 jirkaana ama 40 iyo dhowr jirkaan waxaa leedahay of course waqti badan ma hayo waa energy badanna ma hayaa leedahay so waa xilliga marka waxa waaye ugu muhiimsan waa dhalinyarada marka waxaa jirta wadankii baan hadda anigu joognaa waa laba marka qofku inuu meelaha la soo taagnaado excuse iyo calaacal iyo cudurdaar iyo saana jirtay waxba wadankan lagama yeelaayay waxaa inuu meelaha la soo taagnaado waa mid yes iyo midda labaad oo ah qofku inuu yiraahdo wax walba oo dreamkayga rumayntiisu ay qaadanayso diyaar baana inaan ku dhaqaaqo anoon cidna waxa waa canaanan anoon cidna waxa waa eedeyn anoon cidna faraha ku taagin I'm just doing it whatever it takes yani diyaar baan laha inaan sameeyo wax kasta oo riyadayda rumaynteedu ay qaadanayso marka waxaa la yidhahdaa qofku meesha uu ku nool yahay dhallinyaradana hadda dhibaatada ugu badan ee haysata waxaa ka mid ah qof kasta wuxuu isku qiimeynaya bii'ada uu joogo isku qiimeynaya waxaa la yidhahdaa marka qofka tusaale ahaan meesha uu ku nool yahay iyo waxa ku dhex nool baa muhiimsan baa la yidhahdaa so that's it thank you aad ayaa umahadsan tahay abaldhiif waxaan leenahay su-aashaasi ugu dambeysay barnaamijka madasha dhalinyarada toddobaadkan aan ku eegeynay doorka dhalinyarada ee horumarinta bulshada iyo sidoo kale dhiirgelinta qaybaheeda kala duwan ay ka sameeyaan barnaamijka anigoo Sumaya Cabdiqaadir ayaa idin soo saartay martida barnaamijka Cabdildhiif Xirsi Yuusuf ayuu ahna tababaraha macadka aan iraahday macadka Minan Station oo ah ka shaqeeya tababarihiisana sidoo kale uu yahay qadanaana Cabdildhiif markaasi waxa uu sameeyaa qaybo kala duwan oo ku horumarinaya bulshada qaybaheeda kala duwan isagoo ka faa'iideysanayo waqtigiisa dhalinyaranimo waxa uu bixiyaa tababaro qaybo kala duwan sida hore idinkugu sheegay isagoo markaasi ku soo qaadanayo
qayb kala duwan barnaamijka waxaa ka daawaneyseen SNTV intaan barnaamij caynkan xiga toddobaadka xiga aynu ku kulmi doona daawadayaal si marna oo idala sidaas iyo amaan Allah